Somaliland. 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 أنا والله تذكر أنا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا هذه هذا فرح سنة هاي. إن كان سوق قريب قلي أو نصيب كويسي. إن أنا ما أتذكر سوق قريب قلاه حفلة دا حرتان كا دفعة دا لبي صدارات دوسي قال لي حلال من لا عيد ماذا قرن كا أو كلا دون ويقول بديه عيدك بريسك. marka hore waan hambalyeynaya dhamaan ciidanka booliska hambalyeynaya daayirta maanta tabarka loo xiray furay ee hambalyeynaya ciidamada kale iyo madaxda hambalyeynaya qarankana waa hambalyo intaasoo ciidana oo aqoon amni iyo difaac iyo aqoon dadnimo soo korostay ay ku soo kordhayna aad baan qaranka u hambalyeynaya booliska intii aan lahaa waa laga yiri oo waxaaba ku soo ururiyay inankii gabeeyay halkan ka heesayay labadii beyd oo ku qaaday baba booliska waxaan ka oran lahaa ninkaas soo ururiyay iyo ninkii gabayga sameeyay asatiriyay ayaa soo ururiyay waxaan sheegayaa dhalinyaradiina daada yar maanta markaa tababar ka baxdaan halka calaamada qaranka ku qaadi doontaan kalarka shaarkiina waa awood aanay cid kale haysan ciidamada mooyaane ciidamadu ma qaata shaarkooda ku qaata kalarka calaamadaasi waxay ka dhigan tahay qoladiina booliska waxa sii dheersay kuwa kale waxaad haysataan saddexda awood qaranka ugu weyn baa lagu dhibay inankaaga maanta halkaa tabar ka baxay dhalinyarada 6 bilood ka baxay waxaad haysidaa tii madaxweynaha ama xukuumadda golaha wasiirada oo fulinta ah waxaa leeyahay qaranka doonaya loo qabto waxa fuliya oo laga sugayaa waa madaxweynaha iyo golaha wasiirada awoodda idinka la idin fulinta ciidamada kale lama wadaagaan waxa kaloo la idin dhiibay waaxdii cadaaladda oo qaranka dastuurku 3 waaxood ka kooban yahay waaxda cadaaladda maxkamadii sare iyo xeerariyay guud iyo garsoorka awoodiina idinkaasi toolidin dhiib 3 waxa kaloo inta ku darsateen waaxdii golayaasha sharci ilaalinta sharci dejinta iyo ilaalinta dejintu baad ka maqan taano booliis ahaan ba soo culisaan marka sharci doonaysaan laakiin waaxdii sharci ilaalinta labadii gole ee xukuumadda ku ilaalinaya sharciyadana idinka ilaaliya booliska loo dhiibay waxa idin haysa dhalinyarada maanta halka joogta mas'uuliyadda la saaray aayadii quraanka ahayd ee Ilaahay ku sheegay amaanada waxaanu u bandhignay buura way diideen waa uga naxariisanay bini aadmiga qaaday waa jaahid qaaday waxaanu karin bini aadmu gabigiisa xil kasta hayo sheekh quraanka akhriya ahaado madaxweynaha ahaado boqor ha ahaado booliska ha ahaado aayadii waxay ku soo ururtay inankaaga maanta dhalinyarada ah ee diriska loo dhiibay ee halka loo dhiibay ogaada aayadda quraanka haysay amaanadii cid walba ka qaaday maxaa laga rabaa waa la soo sheegay waa la idin dhigay waa sharci wuxuu dhan waxay soo ururtay amaanada waxa awood idin siiyay idinkii caafimaadka kaliya oo aan hay'ad kala qaadin inaad guriga qoyska hurdo aad u gali karto inaad oday iyo islaanta soo garqaad karto inaad wiil iyo aabihii u garqaad karto dambiga dhex gashay arrintooda ahwaashi shakhsiga ayda qofka ayuu booliisku awood u leeyahay inuu galo faraha dhakhtarku qulma marka caafimaadka taa sameyn kara cid kale oo sameyn karta ma jirto waxa laga rabaa hadda booliiska tii xilka qaadeen inaad soo ogaataan oo qaranka ugu shaqeysaan booliisku taariikh ahaan waa ugu soo shaqeeyay oo amniga dalka socda waa booliisku ku socda taajir lacag leh oo daarana dhigta ma jireen haddaan booliisku naftiisa hurayn haddaan nin booliis u gaajoonayn haddaan mid booliis u dhaawacmayn haddaan mid booliis dantiisa iyo caruurta dayacayn taajir daarana dhisto hebel la yiraahdo oo xarwada ma jireen gabar xarwada ma jirteen sheekh quraan ku akhriya tafsiir meel ma jireen oo masaajid akhriya marnaba waxa la isku qabtay ajarka yaa leh oo ajar badan ninka masaajidka joogay dadka cilmiga baraya ee quraanka tafsiirka wada mise ka amnigiisa ilaalinaya dhaxanta joogay dibadda labada ka ajar badan keebaa mudan labada haddaanu ka booliiska ee dhaxanta jooga ee ilaalinaya aanu jirin sheekhu quraan dad buu bareen dadkuna waxa u barteen marka xilkaas ay haya waana la sheegay hambaliyo waxaynu ugu doonaa Somaliland iyo maanta
waxaa la socotaan dhammaanteen maanta caalamka dadka wararka baahiya af kastay ku hadlaan iyo meel kastoo yihiinba waxaa aada loo hadlayaa magaca somalilan baa loo hadlaya waxaa loogu hadlayaa wax kale ma aha waa intii ay shacbiga somaliland qabteen dad isogol khilaafkooda xalista horumar doonaya cid aanay ictiraafsanaan dalkooda dhisanaya qof waliba halkiisa iska xisaarayo waxay qof walba ugu muuqataa inay tahay dad iyo dal wax lala qabsan karo oo jira oo aan dhaah laga qarin karin marka xawla caalam maanta ayay taagantihi somaliland inta ka dhiman waxaa buuxin kara waa dadkeeda dhibaatooyinkeena haysta ee bulshadeena waa laba qodoboo isu hiiliya ayaana haysta waa qabyaaladda iyo faqriga labaduba kala maarmaan oo qofkii markuu faqiir yahay wuxuu ku tiirsananayaa ciddii dhalasho ahaan ama gobol ahaan ama deeg ahaan u xigto oo waxa adduunka o dhan baa soo maray waxa lagaga bixi karaa waa faqriga oo loola dagaalamo si faqriga loola dagaalamana waxaa loo baahan yahay inuu qofka muwaadinka xilisa saaro oo uu shaqo abuurto haddii dadku aanay shaqada curin shaqadu ma tiro shaqaan haya qofa u ii kaalay caalamkan wada horo maroo dhammina taas unbuu ku horumaray lama arag caalamka taariikhdana may dhicina mayso dal aanu dadkiisu horu marin oonu shaqaynin oo mucaawino iyo wax sadaqad gacanta looga dhiibo ku horumara horena looma arag hadda la arki maayo rag baa dood keeni doona odhan doonaa marshal balan baa jirayo markii ayuu burburtay maraykanka usoo gurmadayo dhaqaale intaasoo bilyan geliyey waa la taageeray taageeradina way ka faa'idaysteen jabaanka iyo yurub oo jarmalku ugu wen yahay muddo sanaday kaga soo kawdeen wixii burbur gaaray marka qof kasta oo kufa gacanta la qabtaa waa la kiciyaa isagaa dhaqaaqa isagaa shaqeeya caalamku taageeru kugu leeyahy inuu maalin iyo laba iyo muddo rogaan ku caawiyo laakiin ma dhici karayso dad noloshooda ku xidha anagu waan sheekaynayaa waan qayinayaa waan faanayaa riyaan ku noolaanayaa xaglahaygu way laabnaanayaan haddana waxaan doonaya horumaro ma dhacayso inteena maanta nool waxaa inagu waajiba qof waliba inuu shaqo u hayto wuu qaban karaa shaqo bini aadmigu maanta waxa magaalooyinkeena waliba caasimadeena ugu badan oo dayac badan oo wadale oo qashin leh oo taballa ka muuqata waxaa la yidhahdaa meel dowladdii hoose dowladda hoose waa shan iyo labaatan qof waa ina yar qof waliba inta gurigiisu yahay hadduu ka shaqeeyo hadduu waddada inta kusoo beegan isagu qabto hadduu qofku axragooda qashinka oo gurigiisa kuwaas ku baabi'iyo iyagana waa la canaanan laga dhaafi maayo waxay seegeen eedda iyagoo qaaday iyo mid waliba marka waxay ku xidhan tahay xagla laaban xoola kuma yimaadaan waan qaynayaa 8 saacadood waan sheekaynayaa waxaanan garanaya faan iyo hadrood iyo waan kaa daaweynaya adaa iga horreeyey baa lagu daalayaa waxaasaa waktiga lagu lumiya qof gurigiisa iyo carruurtiisa xataa hadduu gurigu daruurmay islaanta la dhoobdhooba malihin qof inankiisa yar gurigu ka soo baxaya tiinka ku horyaala ka goole uu karayaayo malihin nin waliba guriga si degdeg uga baxa xataa carruurta hadday hooyadood bugto dib uma eegna inagu waxaynu ka doorana makhaada iyo mafrishka iyo buuqa sidaana laguma dhaqmo ilaahay 24 saacadood waktiga nooga dhigay maalin iyo habeen 24 saacadood waa la qaybiyey diintaa qaybisay caqligaa qaybiyey 8 waa nasasha iyo danahaaga iyo cibaadada ilaahay ku qaybaa lagu yidhi iyo hurdaada ka bogo 8 shaqee dalalka hore u maray ee ugu horreeyaan jabaanka iyo jarmalku waxay ku dareen 8 saacadood caalamku shaqeeyey intii ay dhisanayeen 2 sanadood oo qaranku leeyahay oo aanay gunad qaadan imikana qofka dalalka ka mid ihi waxaa u shaqeeyaa 14 saacadood waayo shaqadii mooye wax kale ma garanayo shaqada naftaada daryeeshada caafimaadkaa ka ilaalisaa ka mid a caafimaadka iyo jimicsigaa ka mid a caafimaadka intaad fadhido ee waktiga xagluhu ku laabayeen cudur baa kugu socda sigaar baad cabaysaa jaad baad cunaysaa cadaadaad ka fadhidaa xanuun jirkaaga dilaysaa tusaale saaka waxaan halkan la yaabay halkan tababarka saaka waxa darbalay ciidanka ugu horreeyey ninkii tababaray ee macalinka uu ahaa dabagala janka hor jooga taba jire waa kan ciidankii tababarkii dugsigii mahdi cali hayey dhowr iyo 80 tababara aroorba soo kala lahaa ayuu ahaa lacag muu dhaqan taajir muu noqon waa taba jire soo taagan muxuu tabcaday dalkoo dhan buu tacab geliyey
كتها برد دوكسي مهد وما دخل كأها وكوي ذلك حرية ولنتي على وكان قبتي ما أنت أنا تكرر تاجر أرديس كوي بروس ولا كتها برد وكوا ما تقفلوا كسحنا إيه لك تشوف يا تاجر ما يستجاب منك ضرر يستجاب لا مش يستجاب تاجر وذلك السي ده عين كاس على الهواء وذلك هو شقيه كيو تابري سووا إنه يرى نو يمد وشانكن ما أنت لو ريسيت دبقنا وكي ألف فوق قبتي كواه وحري إساس عيدا يهيدين وتوشر عيد ورتاج وكعف مد بدي أدي سور المانت ويا ربوش العصا طب الله ميدا شوقه الله ميدا مركز شقادو إنه نكب حنا رأينا إنه قال لنا رهبتك إنه نتابرين وجهينه وإنه المسكحة لنا قالنا ذلك أنا وكل بنت الرسالة سنة معدنت رقبة قطي بدر رقبة وحكنا صوب حي رقبة برت الألالية وإن لم تسجل بلود بكل شيء هاي أدي محي قبرت الدولة دي محي سياسة دولة واحد سمرك دلتها الشقية والعكس صار وعشور بحيو أيو دولة الغالية ذكرنا وعيدا كذا الغالية هلا وعافمات كذا هجاجا وحن دولة إن القضب كان يسول تاجو وقضب كان نبض dhibaatadayna haysataa waxa weeye khilaafka deegaanka jaago mid 10 mitir ayaa qof ugu dilay waxa inagu dhacday waxaanu ka iimaanka baxsan inuu dhul waayno meel uu diray inuu waayno hadda waxaanu ka baqanaa meel la isku aaseen la waayo saa dhulkii nin wala meel budana loo sheeganaya waa maskax nagu dhacday dhulka baa mitir galay taas socon mayso dhulka waxa la inteena nool iyo inta dhalan doonta iyo inta dhalan doonta iyo inta dhalan doonta oo fiirso laasgeel sawirka ku yaala waa 6,000 sanadood ka hor ayaa halkan dadku noolaa awgeeshay ku noolaa 5,000 ilaa 6,000 sanadood waa nabi ciise ka hor ayuu dadka ku noolaa dadkii dhulka ah way nooga tageen maanta inaga joogna kuma ku sano oo soo socdo dhulku waa inaga badan yahay kontarka sano soo socdo dhulkeena dadku ciidu kuma noqonayo dhul weyn buu ilaahay nasi oo bad leh oo buur leh oo kayn leh oo banaan leh inaan dadkeena fahamsino wey yaa qaadaya fahamsinay waa buriiska waa iyaga dhib isku dhacda bil walba nin baa ku dhintay buriis ama ku dhaawacma dhul isku leeyahay ka badan haddaan bishii ma jeclahay inaan dadka fahamsino waa dhulkooda furay iyo in loo nidaamiyo ceel baynu wada baahannahay caafimaad baynu wada baahannahay wadaynu wada baahannahay tacliim baynu wada baahannahay waxaanu ku qabsanaa inagoo oo qalbiga iska aamina wax wada qabsana hore wada mara ma jiro qabiil magaalo kaliya camiraya ma jiro qabiil kaliya meel dawlad ka dhisi kara waxaanu wax ku nahay waa isu taga Soomaaliland oo midowda waxaanu ku dhaanaa qoladii koonfurta oo jiray inagu wali waan ismaqlanaa oo dhadhow laakiin halkan doonayna gaarin way fogtahay halkan doonayna inaynu eegano ma kuwa burbursan inaynu xaq hore eegnaaba oo inta baynu qabsanayno waynu ka wanaagsannahay waxaanu ka wanaagsannahay maanta waxay inaga in dalkeenu u barataa 30 sanadood oo xorriyada inaynu la baratanahay dawladda horumaray hankeenu waa halka taga inanteena waa taageertaan hankeenu waa inuu kor u kaca oo la eegin inaga ku arkaaro warnin fadhiyo oo curyaar oo ka cayn waan talaabsanay waan dhaamaa inaad orod ku dheernaaba rabna taaynu mustaqbalkeena sheeganayo ee rabna fariinteenu kala qaadanayna maanta waxa weeye dalkeena si aynu dhisayno ilaahay mahadi meel wacan baynu marayna laakiin buriis tababarkiina waxaan idinku darayaa waa inaad noqotaan tabliiqiyiin dal jacayl dadka isku mideeya is ogolaysiiya u sheega balaayo aynu isku qabsano oo ay dhibeena jirin waxaan ku amaanayaa ciidamada qaranka iyo qolada imika aanu hayno ee shaqada qaran oo iyagu rahmo wanaagsan haya inay ka horeeyaan dad kale oo xagga ugu horeeyaan inay hawsha qabtaan waa se waana inuu tabliiqa qaadno si aanu dadkeena u kala nabad galno oo inaan maalin walba doontooda ku qasbin iyaguna dhagax iyo xabad lagu soo ridin hadda buluska tiin maanta Soomaaliland waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaarka iyaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaaya nabad jaarka iyaga oo dhan oo dhinac kasta naga xigay waxaan u fiirnaa gacan nabadeed haddii xitaa aan isqabnay inaanu hab wada hadana oo nabadgelyo wax ku xalino dadka soo daalay waaragan u nahay dagaal iyo qax uga baahnin carruurtayada iyo inta naga dambaysa inay taa gashada diyaar mani gudaheena iyo dibadda soo nabad baanu ciidan buu haynaa oo dalka dariska ah caalamkana nabad baanu haynaa
wax kastoo horumarka iyo biniaadmiga dhigayo waa kasoo jeedaa wax kastoo biniaadmiga iyo caalamka u horumarinayana qayb baanu ka nahay mid baanu isa sheegaynaa annagu Soomaaliyeed baanu nahay cid walba dantaydaanu kula shaqaynaa iyo danta horumarka dalkayaga qof kasta oo nala shaqaysanaya oon wax wada qabsanna diyaar baanu nahay annaga oo laba dowladood oo siman ah oo saa garabkayga isaga eegayna ayaa lana dal iyo dad baanu nahay maxaan kula qabanaa cidna ka yeeri mayno wax annaga qarnimadayada wax dhimaya cidina nagu matasho badda cas dowladaha badda cas idin waxaan u samaynayaa ciidan difaaca ee magacayaasha badan isteeda dowladooda waxaanu cod dheer u sheegaynaa badda iyo barigayaga annaga difaacana cid aan nagala tashana imanna mayso kana yeeri mayno mana nihin qolo ku baqanaysa cid baa xoog weyn iyo taangiibu wataa midna ma aaminsanin horaan taangiyaa lagu furay qori iyo takiya ma nihin qolo taa ka baqanaysa nin wala xoog weyn waxaan u sheegaynaa nabad iyo wadataan oo qaran aad iyo aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.